السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سير محمد أنور برفيس wuxuu ka mid yahay boqolka qof ee ugu saameynta badan dalka Ingiriiska waana ganacsade British Muslim ah kana soo jeeda asal ahaan waddanka Pakistan ahna asaasaha ee madaxa shirkadda Bestway waxay gaartay hantii sanadkii 2017 $4 bilyan taas oo ka dhigtay ganacsadaha ugu taajirsan jaaliyadda Pakistan ee degan dalka Ingiriiska wuxuu dhashay Anwar sanadkii 1935 waxaana dhalay aabe beerley faqiir ah wuxuuna lahaa Anwar hami sare ka oo asigoo 22 sano jir ah ku qasbay inuu waddanka Pakistan ka haajiro oo doon u socod Ingiriiska soo raaco markii uu galay Ingiriiska wuxuu ka shaqo bilaabay darwalnimo oo wuxuu ka xin jiray mid ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee magaalada London kolkii uu helay xoogaa lacag ah ayuu furtay dukaan yar muddo yar kadib wuxuu galbeedka London ka furtay dukaan lagu iibiyo cuntada iyo waxyaabaha ay xiiseeyaan mujtamaca ku nool magaalada London ee asalaan ka soo jeeda koonfurta bari ee qaaradda Aasiya Anwar ayaa labadaas dukaan ka gaaray guulo mugle taas oo ku dhiirigelisay inuu sameeyo mashruuc ganacsi oo ka ballaaran midka uu hadda ku jiro magacii ay u bixin lahayn mashruuca ganacsi ee cusub ay muddo 3 bil ah ka doodayeen Anwar iyo saaxiibadii aakhirkiina waxay qaateen magaca Bestway Sir Maxamed Anwar oo 40 sano kadib la weydiiyay magaca Bestway ayaa ku jawaabay aniga bilowgii kuma faraxsanaan magaca Bestway laakiin kolkii dambe wuxuu iska noqday magac suuq leh macaamiishan si sahlan ay ugu dhawaaq karto toddobaadmeedii Bestway waxay ka koobnayd 12 dukaan oo lagu iibiyo badeecada si tafaariiq ah laakiin kolkii dambe shaqaalaha dukaanada Bestway ka shaqeeyay ayaa milkiilaha Anwar kula taliyay in uu wax iibintiisa ku daro in macaamiisha laga gado badeecooyinka si jumlad ahaan ah Anwar asigoo ka jawaabay soo jeedintaas isla markaana ka faa'iideysanay ayuu sanadkii 1976 galbeedka London ka furay baqaar weyn oo badeecada jumladaha iibiya guul weyn ayuu ka gaaray guushaas oo ku riixday in uu furo baqaaro kale oo weyn kadibna si tartiib ah ayuu u wareegay jumlad iibiye waxayna gaareen baqaaradii sanadkii 2004 soddon baqaar sanadkii xigeen Anwar wuxuu iibsaday suuqyada Hadfield Anwar hantiisa faraha badan wuxuu u soo jeeday sanadkii 2000 in fariin loo soo diray isla markaana loo sheego in wiilkiisa Daawud oo arday ka ah jaamacadda Oxford afduub loo haysto isla markaana laga doonayay madax furasho laakiin aakhirkii waxay booliska gacanta ku dhigeen afduubihii waxayna maxkamad ku xukuntay 2 sano iyo bar xabsi ah Anwar ma hilmaamin inuu sadaqada iyo sakada bixiyo sidaas daraaddeed wuxuu aasaasay sanadkii 1987 jamciyad khayri ah wuxuuna gudaha dalka Ingiriiska qarashaad badan ku bixiyay caafimaadka waxbarashada oo boqolaal arday oo ka timid koonfurta qaaradda Aasiya ayuu ka bixiyay qarashaadka waxbarashada dhanka kale Anwar ma hilmaamin waddankiisa asalka ah ee Pakistan oo wuxuu waddankiisa ku maalgeliyay malaayiin dollar wuxuuna gudaha dalkiisa hooyo ee Pakistan ka dhisay sanadkii 1995 warshad samaysa shamiitada taas oo sanadkiiba soo saartay 6 milyan oo tan oo shamiito ah waxayna noqotay warshadda soo saarta shamiitada ee ugu weyn koonfurta qaaradda Aasiya gabagabadii Anwar waxaa lagu abaalmariyay billado iyo abaalmarino caalami ah waxaana ka mid ah abaalmarinadaasi billadda Imbaraatoriyadda Ingiriiska oo la siiyay sanadkii 1992 sidoo kale wuxuu dalkiisa Pakistan ka helay abaalmarin qaali ah taas oo la siiyo shakhsiyaadka wax u qabta ummadda Pakistan maray saxaafadda weydiisay Sir Maxamed Anwar Barfiis waayadiisa wuxuu ku jawaabay waxaan aad u jeclahay in aan adduun iyo aan qarab u shaqeysto